marka qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta waxa xanuunta waxa u daran intaasuu ka galaa iyo qalbiga had markaad silaa seexo yuunbay kooli marayaan jacay markaa nina wuu ku dhadhabaa nina isagoo hogta yuunbuu iyadoo taataabanayso walaala adiga magacaa ku bilaabaya marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta wallaahi magacay waxaa la dhahaa Safiya Cabdi Maxamed de waxaan maranayaa oo dadka waxa ay xanuunta de wadnuhunba dadka inta badan laga qabtaa wadnuhu jacaylka wadnuhu qabtaa adiga mar way marna jacayl ma kugu dhacay anigu waa yarag baan adigoo magacaa ku bilaabaya marka uu qofka jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta walaal horta magacayga ma sheego ma fahanti laakiin jacaylka hore igu mudcin laakiin saacadda markaan soo taagay ugu bilaabay aduna ay ka garan adigoo magacaa ku bilaabaya marka qofku jacaylka uu ku dhaco marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta qofka xanuunsan jacayl ku dhaco halkee baa xanuunta waxa xanuunta qof horta inta miyirka la raado uu iska garan waaya miyirka Soomaalka kullay wax jilida dhex yaacay soo kalena waa noqdaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuunta waxa ku dhacay bahaliyo u bahaliyooba bahaliyo maxaad ka wadaa marka jacaylku wuxuu kala baxaa dhowr qaybood horta marka qayb qofkii aad jecleed marka aragtay misalnanta jecleed oo kale mid maba eegi karto oo ilmeynaysa mid wada aamusaysa mid san firkanax baad yeelaysaa mid la adiyada aragtay gamimaysi marka waa bilwad jacaylku marka aragtida jacaylka ma horeeyo marka labada qof markay sarkaan jacaylku kadis ku wanaagsan labada qof si kadis soo kulmaan ayuu ku wanaagsan aragtida jacaylka ma horeeyo adiga kee kugu dhacay aniga waxa ku dhacay mid kadis ah kaabad baa inanku la balamo waliba hadii la yiraahdo qoorta kaabad baa inanku la balamo kaabadii waxaan fadhiisanayay ilaa sanad iyo badh oo inantii ka raadinayna meesha soo marto markay ii timaadana waan aamusaa wuxuu habeen dambe inooga dhig ballanteen marka in inantii la wadi kara jacaylkii waan kari waa marka jacaylku halkay ku dambeysay inantii ma arki dambe way tahriibto jarmalkay qabato anna waxaan si maka daba dhoofta marka waxaan ku waay doonay dhaqaale aan ku dhoofo ilaa markay inantii waan jecela telefoon number hiba marka uu qofku jacaylka uu ku dhaco ama uu helo halkee ayaa xanuunta muxuu dareemaa qofkaas way dareemaa eedade uu dhaqaajiyaa uno meel aan muraad u lahayn eedade ayuu ma u dhaqaajiyaa kowdade dabeetana sooba saldhigi maayo ilaa uu jacaylka guntiisa gaadho adiga bal jacaylkaagii hore bal ka waran iyo haddii imika qudheeda aad yara celcelinayso jacayl maanuu jacaylkaygii hore waxa la wixii aan faraa ku hayayba waan ilaabayba ma fahamte baycamister baan ahayo wallaahi baycamisterkii waan ka tegey adigoo magacaa ku bilaabaya marka uu qofku jacayl helo ama uu ku dhaco halkeeba xanuuntaa marka uu qofku jacayl ku dhaco meel xanuun aad taabatoo tiraado halkaasaa xanuunaysaa ma jiro waa qof caadiya laakiin hawo uunbaa hayso oo wuxuunbuu doonayaa uun dabeedna inantaa uu caashaqay masalan dumarkaa ma caashaqay haddii la yidhaahdo imanka qoorta aad tiraahdo waxaan doonayaa inaad qoortaada ii soo goyso markaasaan ku raacayaaye wuxuu odhanayaa iga gooya qoorta ii gooya ayuu odhanaya lacag iyo waxaa iska daa haddii qoorta la yidhaha qoortaba lagu gooyaa oo inantaa ma la siiyaa haaya siiya buu odhanaya jacaylku waa kaa horta wax maaha cayaar iyo dhayaldhayl iyo waxaas imanka jacaylkanay sheegayaan maaha jacaylba waa jacayl waa ayaamo uun waxa weeyaan dhalanteed weeyaan waan ku jecelaya bas dabeedna qaar laakiin kii hore maaha adigoo magacaa ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa magacayga Mustafa Cabdi Saciid waxaan aaminsanahay qofka markuu jacayl ku dhaco yacni meel xanuunayso la oran karo ama la taaban karo la oranayo way xanuunaysaa inaanay jirin ya inkastoo de wadnaha oo kale dadku sheegaan qalbiga oo kale sheegaan qofka wax uu yiraahdo moogtay laakiin ma dareemi karayno jacaylku waa tan iyo cadhib odhan laanu adigoo magacaa ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa
horta magacayga bismillahi raxmaan raxiim warrigo axmed naasir laakiinse su-aashaad weydiisay dee horta qofka jacaylka wax jira laakiinse wax la taaban karo oo qofka halkaasa xarunaysa oo dee jirtaa ma jirto laakiinse dee qofka caqliyan ayunbu wax ka yeelasi noqonayaan dee waa wax jira un dee wuxuunbu doonayaa qofkaas wuxuu doonaha ahaada amba wuxuu jeclaaday un dee intaas mooye dee wax kaloo dee aan ku tilmaami karaa habeeraati ma jirta laakiinse meel la taaban karo waa la taabanaya halkaas xarunaysa wax jira maaha dee laakiinse jacaylka wax jira adigu magacaa ku bilaabaya marka uu qofku jacayl ku dhaco halkee ayaa xanuuntaa maxamed horta magacayga waxaa la yidhaha maxamed xuseen shire anigu igu dhacay wuu igu soo dhowaaday welina wuu hayaa markuu qofku ku dhaco jacaylka waxa hayaa waxa hawshaad hayso waad ilowdaa meel kalaad gashaa gaadhiga markaad waddo maxamadaad ka yar baxdaa gaadhigoo dad kula gelay baad arkaysaa bareegaad qabanaysaa dadka saaran baa xitaa khatar gelaya mashaakilkaasu baalkaasu nagu haya laakiin waxaan dabacsanahay inaan imika xal ka gaadho oo hore ugu socdoba oo hay halkee baa ku xanuunta markaa waa qalbigaa dee hawl gelaya marshuuc buu gelayaa waxaa ku hor taagan qofkii hawshii wada gelaysaan ayaa ku imanaysa adigoo masala kaloo aan ku jecelahay ayaa hawshii gaadhigii ma wadaa waddadii istarayrkii ma maraya adoo ila joogo ii sheekaynaya baad imanaysa qalbigii imanaysaa dabeetana waxaad ka baxaysaa shaqadeed haysi markaa khatar baad imanayso khataro badan baan ku haynaa dadka